السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي إخواني أخواتي في الله، ما كم التهاي كوا إلهي أنت بريين بريدو دي دعادو دي مكاولي أي مغانتهاي ما كشك ذي بريدة إلهي سبحانه وتعالى أدبريدي ما دق ستي بريدة إلهي بريدي ما جعلاتي إن إلهي سبحانه وتعالى دقسأوكو أقبله أما دقسأوكو سيوحد البطي هذا بد دقيستا قلب كان أيا شكيك كاساري دونا هذا بد دقيستا حديث كان سقى شكيك كاساري دونا النبي صلى الله عليه وسلم وحو ليهي يستجاب لأحدكم قف كستو إذن كميدا بريديس إلهي وو أقبليا ما لم يعجل انتو صندق دقين هدو صندق دقين إلهي سبحانه وتعالى وو كأقبليا بريد دق سيمدا لشيغينا waa maxay nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofka wuxuu oranaya Allah aan bariyay leeyga jawaabin ilaahay baan bariyay jawaabtii maanan helin oo waayo inuu qofka arku doonaya nabigana wuxuu tilmaamay xad gudubka waxaba kamid ah inuu qofka dhaho ilaahay baan dacawtu falam yastajib li warwaan bariyay ilaahay baan bariyay leeyga ma ajiibin waayo wixii aan dalbadayna ilaahay kamaanan helin oo waka marka haddaba iska ilaali qodobkaasi waayo waa xadgudub aad ku samaynayso baryada ilaahay subxaanahu wa tacaala soo ma ogid ilaahay subxaanahu wa tacaala in haddii khayrka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuugu talagalay kuu soo dadejin kara ama dib kuugu dhigi kara ilaahay isagoo xaaladaha u fiirinaayo laga yaabaa shar kugu soo socota ama khayr kugu soo socday baryadaada inuu ilaahay kaaga ajiibay haddaba baryadaad ilaahay baryaysa nebiga wuxuu tilmaamay inay saddex midkood noqonayso kow in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu soo dadejinayo haddii laguu soo dadejin waayana kayd baa lagaaga dhigayaa aakhiro waa ta labaad ta saddexaadna waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala shar kugu soo socotay khatar kugu soo socotay ilaahay kaaga xijaabo ilaahay kaaga leexiyo haddaba maxaad u degdegaysaa saddexdaa waxyaabood mid bay noqonaysaa ducadaadoo iimaanso ilaahayna subxaanahu wa tacaala khayrka agtiisa yaa la filo baryadana ciddaad u dhiibatay waa qof aan khasnadihiisa iyo baryada isaga la barya aan weligiiba lagu khasaarin haddii kale baryadaada dib oogu laabo eeg haddii baryadaada wax si kale yihiin naftaada ku laabo haddii baryadaada aan lagu soo dadejin ilaahay baa khayr kaaga dhigo meel kuu dhigay oo haddaba ha degdegin taasina xadgudub bay keeni kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iskana ilaaliya qodobka